fariintan caafimaad waxa ay idinka timid wasaaradda caafimaadka ee Puntland joogtee faradhaqashada adigoo isticmaalaya biyo iyo saabuun 30 daqiiqo hal mar si looga hortago cudurka corona jooji islaanta gacan qaadka ah hana ku taaban gacmahaaga wajiga afka iyo sankaba haddii aad qufacdo ama aad hindhisto isticmaal suxulka gacantaada ama maro nadiifa si aysan neeftaada ugu gudbinin qofka ka agdhow wax iska xiji meel kasta oo aad taabanayso ama aad furayso haddii ay dhacdana markiiba biyo iyo saabuun gacmaha ku dhaqo ka fogow goobaha la isugu yimaado oo waxaad yaraysaa safarrada aan muhiimka ahayn kuna ekow gurigaaga haddii aad isku aragto calaamadaha soo socda sida qandho ama xumad qufac qallalan hindhiso neef qabatin ama neef istaag si degdeg waxaad u wacdaa nambarka 343 ama tag goobta caafimaad ee kuugu dhow kana fogow dadka kale si aadan cudurka u faafin yaree walaaca iyo walwalka aad ka qabto cudurkan adigoo badinaya tala saarashada ilaahay iyo ducada nabigeena suuban nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee oo ah ilaahow waxaan ka magan galayaa baraska waalida juudaanka iyo xanuunada kuwada ugu xunxun kor u qaad difaaca jirkaaga haddii aad qabto xanuuno ay ka mid yihiin مثلا sokorta wadna xanuunka dhiigkarka oo fureenka iyo beer xanuunka waa in ay guryahooda ku ekaadaan oo guryahooda ay joogaan dadka ugu nugul cudurkan corona oo waxa kamid ah caruurta dadka waaweyn iyo haweenka uurka leh